بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabka hadal qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa shalay ayay ahayd markii wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur oo warqad u qoray taliska ku meel gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya taas oo uu kaga dalbanayay in ay warbixin dhameystiran kaga keenaan xaaladda Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo isagu muddo dhowr sanadood u xiran dawladda Soomaaliya مختار وحو هوري وها hogaamiye ku xigeenkii kooxda al-shabaab hay yeeshay khilaaf la sheegay inay soo kala dhaxgaleen isaga iyo hogaanka sare ee kooxdaasi uu hore uga tirsanaa waxa ay sababtay inuu isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya horaantii sanadkii 2017 kadibna sanadkii 2018 ayuu u tartamay xilka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed halkaasi oo ciidamada Ethiopia ay ka soo qabteen magaalada Baydhabo isagoo tartan ugu jira qabashada xilka madaxweynaha dawlad goboleedkaasi kadibna lagu wareejiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu la sheegay inay lahayd amarka lagu soo qabtay ee ay ciidamada Ethiopiaanku ku soo qabteen soo qabashadiisina waxa ka dhalatay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Baydhabo oo markaasi ay ku dhinteen dad aad u badan oo ay ku laayeen ciidamada kala duwan ee ammaanka haddaba Mukhtaar oo tan iyo sanadkaasi 2018 u xidhnaa dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu wasiirku shalay sheegay in xaaladiisa caafimaad iyo guud ahaanba noloshiisa iyo meesha uu ku sugan yahay iyo waliba dambiyada loo haysto ay hay'adda nabad sugiddu warbixin buuxda kaga keento xalay saqdhexe markii ay ahayd ayuu warqad ku saxiixnaa taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'addaasi nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Yaasiin Faray waxa la soo saaray ama la soo dhigay baraha bulshada warqadaasi oo taliska ka soo baxday isla markaasina agaasimaha ku meel gaarkii uu saxiixay ayaynu eegi doonaa waxyaabihii ku qoraa oo lagaga warbixinay xaaladda Mukhtaar Robow qodob yaab leh oo markaasi aad loo qaada dhigay baraha bulshada xalay iyo saakaba ayaa ku qoraa waxa ay la jooga saaxiibka Jaamac Galad markale taariikhdu waa 29 bisha December ee sanadda 2021 maalin misalabo ayaa ka hadsan sanadkan waxaana la gali doonaa sanadka cusub ee 2022 Jaamac ku soo dhaweey way ninkii saaxiibka ah ee Mukhtaar Robow Abu Mansuur waa xagaa ku saaxiibnaan Mukhtaar صاحب ما داي ما هين horta ma isaqana ma waaye Mukhtaar Robow Abu Mansuur kulli adigu taqaana korka waa ka taqaana ilaa laba yaqaan laakiin saaxiib ilaa 2018 waa xidhan yahay shalay ayuu Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dabcan u muuqday in maaragtay xaaladda hadda jirta uu ka faa'iideysanay waxa uu warqad u qoray taliska nisa warqadii xalay laga soo jawaabay maxaa la sheegay بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا مركل جودهان أمدا الصوماليين مال كستي ويشوك تبع إن أرتا وكحمة هاي موادين كاسي صوماليين حرقيسة إن ما ركتايتو مدة درقاتية شرع درها ضد كمارت اللي قلت عدي دلميجا ما ركتايتو إن لو لك عيب وكم مديها مركي حقيقة اللي جاه الله إن وحند مدة إن ما ركتايتو تاس سبب أي أطهي يعني مارتي dhinaca maamulka Koonfur Galbeed oo isagu dawladda ka riixayay maartay siixidnaanshaha ama maartay ku qanacsana waxyaabihii markii uu maalmihii doorashada uu ka hadlayay kan maxaan ku lafta gareena koobay ka ahayd markii yaani la doortay inuu muddo maalmo toddobaad gudihii ama laba toddobaad inuu ku soo deyn doono Mukhtaar Robow waxyaalo noocaas uu ku hadlay markii dambe isaga u xidhnaa marka waa dulmiyadii maaragtay to dhacay bay kamid tahay haddana shacabka Koonfur Galbeed aysan maaragtay to ka gilgilinin oo aysan maaragtay to ka muujinin dareenkooda dhabta ah marka laga yimaado shakhsiyaad ama qof iyo laba ka hadlay mooyaane hadda iyo muhiimadda waxay tahay dhawaaqan ka soo yeeray Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ma aha dhawaaq loogu danaynayo Mukhtaar Robow dadku horta waa inay fahmaan meesha loolan baa ka jira hardan baa ka jira ninka lagu magacaabo Maxamed Xuseen Roble muddo hal sano iyo siyaaduu ra'iisul wasaare yahay marna kama hadlin Cabdullaahi Maxamed Nuur muddo ku dhawaad aduu 3 bilood iyo siyaada ah iyo hadda wasiir yahay marna kama hadlin maalinkii kan jooga Baydhabo muxuu ahaa lafta gareen Soomauna dhihin waxaan taageersanahay farmaajo oo shirkii ra'iisul wasaaraha ka qayb gali maayo waa lagu gubayaa
ninkii nin lagu guba loo waayo kaasaa nasiib leh laakiin ninkii nin lagu guba loo helayo hore lagaga gubayaa meesha waxa weeye waa halka waa dabaaqtan siyaasadeed baa la yiraahdaa taasaa laakiin waxaan wax mukhtaar loogu danaynayo laakiin tanaa dan ahba inay tano timaado oo la fahmo yaa mukhtaarna dan u ah shacabka Soomaaliyeed la daro ah soo aad garan marka waxa weeyaan horta taas weey lafta garan hadana waa un la soo deyn doona insha Allah taala maxaan ku yiraahdaa ninkan sababtoo wax dambi oo lagu hadii la yiraahdo maxaan ku dhahaayto al-shabaab waa ka tirsanaan jiray dawladda Soomaaliya oo dhan baa wada al-shabaab qof aan soo marin al-shabaab maya qof aan soo marin al-shabaab waa wax yar qalla ma yujad arabta tiraahdo moogta وكاسا إنه أنا ما قناة فرماتشين وقدال كبيرة لكن هو ما قناة وفرماتشي وحلا من ها وحن كم دهين مدحونياش سوالي قارب صوب مري مدحونيال هاد تشوجا صوب مري سي شباب وهاي أنا يوم دي حكومة ما بقول مدحونيال ما بقول قوله وحوي المركة وطريق ضد الصومال صوب مري ويان الشباب نوح قرينا يوتوجا أما هينه وروحوك بدن ومر صومالي وأردن بقبصري بقى هاي المقدسة كتالية عاصمة دومد الصومالية Soomaaliya garan marka in la isyeelo ma aha in si dhab ah marka waxani waxa leedahay wax lagu gubayo ahaa ninkan kolkii horena dabdar u xidhnaa haddana dhawaaqa maxay sheegtay hadda yaasifari muxuu sheegay marka muhiimadda waxa weey taa yaasifari hay dambayso marka waxa weeyaan fursad bay haystaan eheladii iyo qaraabadii iyo shacabka reer koonfur galbeed oo dhan fursad waxay haystaan hadda ay ka faa'iideysan karaan oo ay mudaharaad iyo isu imaatin iyo kulamo ay ku qaban karaan oo ku taageeri karaan oo ku awoodsin karaan xukuumadda xilgaarsiinta sababtoo ah ninka dulmi buu ku xidhan yahay wuxuu doonay ha ahaadee hadduu dambiile yahay maxay ahayd maxkamad inta la geeyo oo maxkamadii lagu qaado in maaragtayto halka kiiskiisa laga cadeeyo intaas maalmood buu cuntada ka soo maray waa iman doona arintaas shalay markii Cabdullaahi Maxamed Nuur warqada soo saaray wasiirro xukuumadda lafta garaan ka tirsan ee koonfur galbeed ayaa waxa ay baraha bulshada gaar ahaan Facebook ku shaaciyeen dulmi qoraal kala duwan oo ay leeyihiin koonfur galbeed nin iyo shakhsi ma duwin karo annagoo hadda xilligii ka xoog badan aan duurka galaynayna hada sabab aan duur ugu laabano meesha isaga yiri qora marka taasi ka duulayeen miya isaga yiri qora oo ninkan dulmi baa lagu haystaa ninkan taageerada shacabka koonfur galbeed buu haystaa mukhtaar yuu haystaa Soomaaliya garan ninkii marka maadaama uu shacabka koonfur galbeed taageeradiisa haysto marka duur jiray buu qtaara maya inta gudaha yimid buu qaatay teela kale ninkan wuxuu caan ku yahay si uu u yar dadabacsan yahay mooyaane waa wax qabad waa mukhtaar robo وانا عد دير ويه oo sida uu yar maartay u dabacsan yahay marka meelaha muuqaalkiisa ka aragto waa ka duwa ka adag yahay waa nin dadka dhaxgeli yaqaan oo bulshada kasban yaqaan markuu al-shabaab ka ahaana waxa weeyaan nin adag oo wuxuu ahaade mar walba warbaahinta qiimaheeda kala duwan ka muuqdo oo ma shir walba qabanaya meel walba shiraya meel walba shirka ku qabanaya oo xagga tagayo oo saacad jawhar joogo oo saacadna maxaan ku yiraahdaa awdheeg la jooga saacadna jooga meesha la yiraahdo leego iyo walaweyn aad ku arkayso oo mar aad arkayso isagoo qurac jooma taagan nin wuxuu ah waa nin active weeyaan ninkii oo marka soo baxay oo fursad helay oo waliba taageero helayna ma si dhisnaanayo lafta gareen meesha waxa ku haya ciidanka Itoobiya iyo haramacad ba ku haya hal xabo taageero ama hayo waxba kama una qabanin baydhabo intuu joogay isaga iyo inta la shaqeysata mushaarun bay qaataan mooyaan wax nidaam ah oo dawliyo oo ka jira sideedaba koonfur galbeed haba yaraatay ma jiro waa nin meesha la geystay markii la rabo un baa loo farmaajo foomka u buuxiyaa muhiimaddu waa inta isaga iyo qoorqoorba labadaba foomka buuxiyaan waa laba foom buuxis way laba maamul madaxweyne qoorqoor hadda kama hadlayno waa ku daraynaa ku daran waa ku daray maya hadii runta laga laabto maya marka laga hadlay marka la maamulada hadda kama hadlayno hadda yar hadda fursad oo helay marka muhiimaddu waxa weeye waa laba foom buuxis way laba asin ما قرقر وحن ويرك عشان هاي قريبة واجي هران تاجري موقتها أنت إذا كان عرسان بس تاجري وروهي واي حتى وحنا أرنا مختار مركب مهمته وحوي أرنت مختار حسد وين بك عيني ساعة
koonfur galbeed ka kicisay in la adaa halka ila aaday moogtahay oo wasiiradii iyo madaxweynaha wixii baa qayliyay xiisad weyn ba ka kicinaysa xiisad laba wajile iyo kicinaysa xiisadda ay qoradan kale yihiin waa saasay kuwana asxaan uma galayaan maxaan weeyaa Mukhtaar Roobow lafta gareen baa lagu gubaya lafta gareen soo ma dhihin waxaan aadahayaa shirka madaxweynaha aadahayaa intii un baa lagu gubahayaa fursadna waa loo helay hadda Mukhtaar Roobowna waa la soo deyn waliba lacagna waa la siin baydhabana uu tagi agtiisana lama mari karo hadduu baydhaba tagana ma joogayo lafta gareen usaga carar ma haba ka yaabin ba habeen kuma hooyanayo gaari waxa lagu keenay qafilan ma wajahday mid qafilan inuu ka raaci doonayo inka saaxiibkiina uu gurman karo isaga hadda gurmad raba isma gurmato way aanu soo noqon markii shariifna uu soo noqon shariif sakeeda ma aanu ma dhihin shariif xasan sheekh aadan isna uu noqon ma uu ogol yahay inay odayga naanaysa sida yeelkadiise laakiin adaa yiri aanu ma dhihine waxay dooni ba ha noqotee meesha baydhabo la isugu tagi doonaa quraanshadana isaga isku jafjafay ninka lafta gareen asaga taa marka meeshu ka galay anaguna waxba u tirmayno nin walba wuxuu yahay aan sheegaynaa isaga iyo qoorqoor u sheegaynaa si carab baan leenahay maxaa ka yaala meesha way aanu marka warqadda nisa ka soo bax warqadda nisa jawaabtii Cabdullaahi Maxamed Nuur ee nisa laga sugay maxay noqotay loo horta warqad barakaysan baa ka soo baxday nisa ko aan waxay dhowr goor baan dabcayna guuro xagga u guurto xagga iyo xamar xabsiga isgeys maxaa dhacay $7,000 baan bixinaa bishii aan ku bixinaa ninka la yiraahdo Mukhtaar Roobow anagana maxaan ku yiraahdaa biilkii xafadahan la diriraynaa nin xidhan oo $7,000 qaadanaya wax la deyn karaba ma aha dhammaan ummadda Soomaaliyeed Muqdisho ku nool waxaan dhihi lahaa meesha la iska xaadiriyo الآية على ماشي هذي هاي واي $7,000 بان بحنا أو سينا كاغا سيدرانه وحكو جيرا بو كليهي ان جامعه ماستر ديجري يودغتا heerka labaad ee jaamacadu dhameynaya buu kuleeyahay kooda uu soo dhaw meesha nimca taala culumta uu taala moojmuuna faahfaahin baan marin laakiin wuxuu yiri in xiriirka caalamiga ah inuu yiri waa leeyahay marka waxa weeyaan ma sha Allah waa ku hambalyeeyay mashaa'ad Cabdillaah garata waa meesha ma mutacallimiin baan baa joogtay TBLF baan marin meesha ay ka hawl gasho عجيب واي ورقده waxaan arki jirnay ninkan oo waxaan la leeyahay 2 bilood cunto moona cunin baan ogaa wan wuxuu ku noolaa ma garanaye Mukhtaar Roobow ha oo soomay cuntada ka soomay oo yiri maxaa la igu haystaa Soomaaliya garan kuwan maamulkii Cabdillaah inay dadka laayaan bay dhigi jireen jaamacad bay ku jiraan moogtahay oo qofkii xaar loogu qabeeyay yaa dhigi jiray waa kana jaamacadii buu ku jiray saaldhay hadal dab waxa halkii baa dhinacyada ka saaran markaasuu leeyahay jaamacadda qaybtii saddexaad yaa hadda gabagaba ii ah waxaan arkaysaana waa barwaaqo iyo nimco Ilaahayna siiyay waa xabsiga hadaan heer gali lahayn ma naaheleen waa tabtii oo kale tabtii weey $7,000 buu qaataa Roobow talo Xasan Daahirna ma ku qaataa shaxasa iyo gargaar bixinay maarad xabis gargaar bixinaysa قال غيري oo hadana dadka siinay waa 100,000 oo qof wali xukuumadda joog ha inti waxa dhan baa filinadii dhan baa filinay alxamdulillah rabbil alamin ilaahay waa kiina soo qof ku ducaysan yahay xabsiga ardaadu kii kala muxuu ah shamaaxiye miyaa la dhihi jiray oo laha diintii baan halkan ku baranaa iyo jaamacad isna jaamacad ilaahayna soo qabtay baan ku mahadinaynaa yo ina kii kala wali soo ducaynaya ma arkin talo xageeyad in kii muxuu ahaa ina suuban جماعة لما جينا مرة مختار ها شيخ مختار مياه ويا أنا صار نقولنا مركب وحيابها ورقة كل اسمه دعاء كم ذا كو وأنت سبب واحد لودي قال لي هني ممكن دكتور أنت سبب جزء في عياي بش $7,000 بسينا وحيابها نوع سنة وحكم ذا شروطه أرشابنا السعودي بده كم وزمون بوحين أو فرحان قرر كم بوحية كذا دي كذا فرحان قرر هاي دبي نين مركو يمد ودولة يمد وكي قرح حسابينتو دعاي ديق الشبية سجى فرماش ديق اسكو قرب شبيين كدبنا مارت مدحوينها دور شهر للشري باسبور كدبلوماسي قال لسيه جاري قبل الظروف قال لسيه ترتن اللي مركي هو وليبه صوب بحي كدبنا مارت وحون اسبدلين شروطها مركاسي باسبور كدبلوماسي قال لو سمينيه شروطه waxa weeye lafta gareen bay iga hayeen ninka shuruudda lagu sheegay waa inta
ninkan dawladda markii uu maxaa heshiiska galahayay fiiri dawladda Soomaaliya oo dhan oo marka uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga Cabdirashiid Buhamiya Cabdixakiim Fiqi Buha ma Cabdirashiid uu hogaaminayo ya duleedka xudur ugu tagay iyo waliba kan hadda gaashaandhigga hadda loo magacaabay nuur oo mise ka socday wax ciida ka badan oo wasiiri iyo saraakiil ciidan iyo dawladda Soomaaliya oo dhan ba meesha guurtay xilliga Xasan Sheekhna way ahayd markii la soo dhaweeyayna si weyn ba ninkan waa laan dheere taan waraynay qoliyaha beelaha ku xoog badan meesha ilaa Soomaalidu iska beelbeel moogtahay yu ka soo jeedaa waana siri way si weynna waa loo soo dhaweeyay si weynna waa looga taageeray Baydhabo haddana cabsida ugu badan ee haysa lafta gareen waa ninka weyn xilli xasan xilligii farmaajo ma xilligii farmaajo waxay doonayba ha ahaatay adoo xillidaas ugu dhawaa marka ninkan si fiican baa loo soo dhaweeyay heshiis baa la galay si Mareykanka qayb ka ahaa Soomaalida oo ayna wada hadlin bay Mareykanka wada hadleen markay Mareykanka iyo Mukhtaar Roobow dhameysteen hawlahooda yaa Soomaalida loo diray shuruudaha la sheegay maxay tahay marka shuruuduhu waxa weeye ninkan waa laan dheere inuu laan gaab ahayn weey ما أنا قال الله يوحنا ما قرنينه أنا أكون شيء هي هذا تاوي واحد كلام كم فسره ما جرتو أي لاندرا دي كان وحيني لفت قريب وحيني كان ولاندرا على جهة يعني لقى قادر وأنا وكقادر ماشي أنت أمي سأم بالقرتي أنا قاب اللي هو عداديني نوع عاص إنه مركب ربط اللوك عن أساس إنه غن Soomaalidu beelbeel iyo waxba isu riixdaa markay deegaanka wada degto soo garan haddana siyaasad iyo kursi maaragtay lagu tartamayo xaqiiqdu waa inta uun way ninkana markii uu ololihii doorashada uu ku jiray iyo wacdara dhigay oo wuxuu noqon lahaa maxaan ku yiraahdaa al-shabaab from al-shabaab to president dadka reer Muqdisho qaybo kamid waxay leeyihiin warninkii Xasan Daahir Weysaha karaamada iyo sharafta weyn lahaa YouTube loo furo waxa la yiri dawladdu waxay qabatay iyo mucaarad waxay sameeyeen reaction ka bixi ama muuqaal soo duuba YouTube kuna irsaaqadii karadsada ninkii Roobowna $7,000 baa bishii ku baxda sayso qabanaysa ama mar kale aan leeyahay shacabka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku dhaqan meesha hal wada aado $7,000 wala soo ogaan dema waxaan aqliga gali karin baa $7,000 la siinay Roobow ma wadaadka $10 kuma baxdo $7 kuma baxdo adu toban ka hadlaysaa $7 dadka meesha joogaya maafiya haday lacag fiiri qofan wax dambi lahayn muwaadin Soomaaliyeed oo cid dambi ka galay aysan jirin oo hadii dambi la raadsanayo fiiri taliyihii guud ee amniyaadka al-shabaab oo dhan waa ninka ugu awood badan weeyay nisa waa Cabdullaahi Kulanajiis miya la yiraahdaa Soomaalidan garan waa amniyaadka al-shabaab oo dhan ninka haysanayay weey meelahan wuxuu iska soo dhiibay boolaha oo meelaheedu iska soo dhiibay wuu tagay saastuu tagay waxa laga dhigay taliye ku xigeenka hay'adda nabadgelyada markaas Mareykan ma ya kulana ma Sakariya ka wada Sakariya Ismaaciil meel yiraahdaa waa kala labe waa ka cudur daaranaya Sakariya waa isaga ka dhaxdarsameen Sakariya sidii loo sii waday meeshaas la geeyay Cabdullaahi Kulana waa laga dabageeyay isna dadka marka wixii la rabo fiiri dadku aqli bay leeyihiin laakiin raga shabaabka ee loo yahay Sakariya kamida Farxan Qarola kamida raga umba kamida aqliga marka waxa loo baahan yahay mataqaana dadka aqli markii wax loo sheegayo wax suuragal ah loo sheegaa boqol nin oo ilmaadeero haday rabto meesha wada joogto laakiin waa in aqli ku wada joogaan in midna kii kalena la yiraahdo waa dambiile oo la iska xidho kanna la yiraahdo baarka inta kula eg oo maxaan ku yiraahdaa ay tuwakaasa ana in adeerka ah ku jooga ma shaqeynayso taas ma shaqeynayso in adeer iyo waxas ma shaqeynayaan muhiimadu waxa weeye kan inuu sadambi lahayn wax u doodana isagii Xasan Daahir Weys maxay doonayeen waxba waa laba muwaadiniin Soomaaliyeed labada dulmi iyo dadka ku xiran yihiin aniga aqeedadii waxaan aaminsanahay cidina igama bedeli karto waxa loo u xiran yahay Xasan Daahir Weys waa oday adeerkeena waa yeel ah dalkan u soo halgamay geesi ah la yaqaano aan gabanaynin isbedelo aqeedadaada bedel iyo maxaan ku yiraahdaa adiga waxaad aaminsan tahay bedel hadii kala wad noo xidhnaanaysaa aqli ma aha taasi Xasan Daahir Weys dulmi buu ku xiran yahay cad oo aan leexleex lahayn sababtoo ah waa sarkaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan dalkan u soo halgamay dhiigiisa iyo naftiisa u horay buu ahaa Soomaaliland garan markii dalkii kala yaacayna
ماشي ugu wanaagsanayd ee qofka islaamka ah ee ilaahay wanaaga uu la maago meeshu ka bilaabay lahabu ka bilaabay oo isaga iyo Xasan Turki iyo group ay ku jiraan saraakiisha ciidanka xoogga dalka kamid aha waxay u muuqatay siyaasad ku dhisan diinta islaamka dalkan in lagu hogaamiyo taana waa sax dad muslimiin way Soomaalidu boqolkiiba boqol dad muslimiin way in diintooda lagu hogaamiyo haday ba helaan qiyaado ku hogaamisa wax diidahay ma jiraan tiiba marka dambi looga dhigayaa Soomaalidan garan inkastoo oo daladiga kara afkaartii ururkii al-ittixaad la dhihi jiray afkaar dibadda maartay laga soo riixay aniga waan la socdaa ururkaas oo maxaan ku ilaadaa markay digaraayna waxa weeye waan qaarnay oo markii dambana de Kismaayaan bay isla joognay markii Kismaayaan laga soo buriyayna waxa dhoobley baan maartay yaan qaxinay maya waa isla qaxayn Soomaaliya garan nima afkaar aaminsan oo aragti muqallada ah oo yar maaragtay aad garanayso in aragti masaafur ay ku jirto yaani ay ku dhex jirto way jirtay laakiin muwaadinka Soomaaliga ah waxa fiican koow horta in la tixgeliyo aragti isaga aaminaadiisa dadkan qofka kale wuxuu aaminsan yahay kuma qarxin karo anigu waxaan aaminsanahay ma aha inaan dadka ku qanciyo hadaan fursad helno inaan uga faa'iideysto ma aha laakiin anagoo kala aragti iyo afkaar duwan anoo aaminsan diinta islaamka dalka lagu xukumo iyo kanoo aaminsan in lagu xukumo wax kale waa in hadana meel dhaxal la soo iman kara marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed Mukhtaar Roobo 7,000 u qaata la wada doonto حبسي هلا هذه aad baad mahadsantahay jaamac galada iyo haata daawadayaal intaas aan ku soo gabagabeeyay tan iyo kulan dambe nabad geliya